الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة، وبرنامج يعني مسلسل كأها ونكجهد ليني تاريخ الإسلام كأن كدر سينيني فدقي كهري وحنكجسوا هذا اللي إن قريش أي جويسي غير بني هاشم يغير بني مطلب oo ay go'aan ku gaareen inaan laga guursan karin ayagana aan loo guuri karin inaan wax laga iibi karin aan la hadli karin la fariisan karin ilaa ay Muhammad soo dhiibeen heshiiskii noocaas ahay oo ku dhisnay jawrka iyo dulmigana lagu qoray warqad kadibna lagu dhajiyay saqful kacbada sanqaafkeeda lagu dhajiyay kadib waxaan soo sheegnay inay u saciyeen warqadaas oo jawrka iyo dulmiga ku dhisneed in la buriyo rag Qurayshta kamid ah kadibna ay ku guuleysteen markaa kadib waxa dhacday nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiis Abu Talib iyo Khadija radiyallahu anha inay geeriyoodaan Khadija radiyallahu anha nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadiisii aad iyo aad ay uga qayb qaadatay nabiga waa isugu jirtay way hilmaamsii jirtay nabiga sallallahu alayhi wasallam murugtiisa marka dacwada aad iyo aad bay uga qayb qaadatay nabiga adeerkiisna waxa weeyaan waa difaaci jiray waana u gargaari jiray geerida Abu Talib fi sahih al-Bukhari wa Muslim ay ku sugan tahay waxa xadiidka warinaya Sa'id ibn al-Musayyab abihi buu ka warinaya markay ku soo xaadirtay buu yiri Abu Talib geeridii markay ku soo xaadirtay rasuulka ayaa u yimid sallallahu alayhi wasallam rasuulkuna wuxuu ka helay agtiisa inay fadhiyaan Abu Jahl iyo Abdullah ibn Abi Umayyah labada nin oo la joogtaa nabigu u soo galay sallallahu alayhi wasallam markaas rasuulku wuxuu ku yiri adeerkii Abu Talib wuxuu ku yiri ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan ashhadu laka biha 'inda Allah waxa tiraahdaa adeerow لا إله إلا الله وحاتر هذا كلمة وإلهي وإنا سبحانه وتعالى أكتس أن كاغا مرقاتك ومالنت قيامها كلمة ده مركي النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وكيري وحا هذا الكي قبصدي أبو جهل إيو عبد الله بن أبي أمية مركاسي وحي كيري هذين يا أبا طالب أترقب عن ملة عبد المطلب أبو طالب ووحد نعي ساهد كتغيسا دينتي عبد المطلب رسولك صلى الله عليه وسلم كما أوسن سولين إنه كعل علينا يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله أيوغنا وحويان مركا كذب أي أرنيان يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب في آخر حياته أي وحويري مركي دنبه هو على ملة عبد المطلب نين كان وحوكسوين يهي ملذي يدينتي عبد المطلب أي كسوين يوانا غيريودي marka wuxuu ku dhintay nabiga adeerkiisa Abu Talib diinu shirk ayuu ku dhintay rasuulka sallallahu alayhi wasallam baa markaa wuxuu yiri ama wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka ilaahi baan ku dhaartay dambi dhaaf ayaan ku dalbaya ilaahi baan dambi dhaaf kaaga dalbaya hadaan la iga reebin markaas waxa soo degtay oo ilaahi wayna subhanahu wa ta'ala uu soo dejiyay ma kana lin nabiyyi والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إلهي ونا وحو إلى النبي أمهبوا يددك إلهي ونا سبحانه وتعالى رميي أن يستغفروا للمشركين مشركين إن يدن بداف أضلبان وإله يدن بداف إن يرادان أمهبوا روح النبي يدد إلهي رميي انتبه inay mushrikiin dambi dhaaf u dalbaan uma haboona walaw kaanu uli qurba haba noqdaan kuwa qaraabo u saaxiibka kuwa mushrikiinta markay u cadaatay ka gadaal inay yihiin ashaabul jahim uma haboona ba ilaahi wina wuxuu kale soo dajiyay innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha adiga nabiga suubanow la tahdi man ahbabta ما هنوني كرتid عدي adiga aad jeclaatid cid kastood adiga aad jeclaatid ma hanuuni kartid
ولكن الله يهدي من يشاء لكن إلهي وحو هنونيا عدو دونه سيداس إلهي وإنا سبحانه وتعالى ويري هذا النبي صلى الله عليه وسلم هداينا ولا أنفيه وحل إنك لا تهدي من أحببت هداينا ولا صوي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم سيدا معنيه وحوي هداية الله والله قيبيا هداية وحل هداية الدلالة والبيان إن قفك وحلا تصوى وحلا عديه تاسوي مد النبي الله صوي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم ليري هداية وحل هداية التوفيق والإلهام قفك إن حقي لغصه أو لو وافجيه أو لو إلهاميه تاس إلهي بالقارة إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء سداس إلهي سبحانه وتعالى وحكى رسولا النبي صلى الله عليه وسلم أذيركيس عباس إنه كيري هل نفعت أبا طالب بشيء أذيرك أبو طالب وحمكو ترتي محايل فإنه كان يحوطك محايل لي أسوه حويان وكو كولكولي جري وكو إلالي جري ويغضب لك أديك درادنا وعرو جري هدي وحلوه سميه مركا وحم أطرتي أيو كوير نبي أديركيس وعباسها مركا رسولك وحير صلى الله عليه وسلم نعمها وحبان أطري إنه في ضحضاح من نار وحكس يا أبو طالب في ضحضاح من نار نار معناها ميل مول kagama sugno waa laga fududeeyay sida riwaayo kale ay cadeysay waxa weeyaan labadiisa luqood labadiisa gomadood waxa weey halka rees magaartada ah ayaa laba dhimbil oo naar ayaa waxa weeyaan halkaas looga dhajinaya markaas maskaxdiisuna huraysa marka naartii ayaa laga fududeeyay nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam lawla ana lakana fi darki al-asfali min an-nar hadana anugu jiri lahayna naarta meesha ugu hooseysa ayuu Abu Talib gali lahay hadaba nabiga sallallahu alayhi wasallam adeerkiis markii uu geeriyooday oo difaaci jiray dhibaatadii nabiga sallallahu alayhi wasallam waa ku darnaatay min sufahaa'i qawmihi waxa weeyaan aad iyo aad ay u dhibeen waana ku dhiiradeen maadaama qofkii waxa weey ay u cabsan jireen oo nabiga adeerkii ah oo difaaci jiray oo meesha ka baxay markaas kadib nabiga sallallahu alayhi marka sanadkaas waxa la yiraahdaa oo Abu Talib oo geeriyooday oo nabiga adeerkii ahaa iyo Khadija aamul husn baa sanadkii murugada lidaaba nabiga sallallahu alayhi wasallam markii albaabadii dacwada waxa weeyaan oo Makka isku soo xirantay oo dacwadii nabiga uu wadi waayay oo dhibkii ku batay baa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu u baxay Taif ayuu aaday asagoo Taif ka dalbanaya waxa weeyaan inay soo dumaan oo ay u gargaaraan qoomkiisa ay uga gargaaraan Taifna markaas waxa deganay reer Thaqif nima la yiraahdo oo aad u adag ayaa deganay marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam Taif uu tagay dacwadii ayuu waxa weeyaan ugu baaqay ilaahay buu ugu yeeray tawxiidkiisii markaas saddex nin baa marka ugu waaweynaa reer Thaqif waxa madax u ahay nin la yiraahdo Abdiyalay ibn Amr nin la yiraahdo marka saddexdii nabigu waa u tagay sallallahu alayhi wasallam ma aysan ajiibin wax allaali wixii nabigu ka dalbaday bal waa dhibeen nabiga sallallahu alayhi wasallam dib aad iyo aad u daran ayay dhibeen waana ku jeesjeeseen waliba nabiga waxay gaarsiiyeen waxa weeyaan tolkiis oo Quraysh ah aysan gaarsiin bay gaarsiiyeen waxay ku direen nabiga sallallahu alayhi wasallam aruurtii iyo haweenkii wax magaradkii ayay ku direen nabigu waa iska soo noqday sallallahu alayhi wasallam magaalada Makka markuu yimid waa loo diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam inuu soo galo wuxuuna ku soo galay Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abd Manaf ninkaas magantiisa ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam Makka ku soo galay kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam dacwadii ayuu waday dadku ayuu ilaahay ugu baaqayay markiiba waxa soo islaamay saxaabigii la oran jiray Atufayl ibn Amr ad-Dawsi ayaa soo islaamay markuu soo islaamay oo dacwadii nabiga sallallahu alayhi wasallam uu dhageystay oo aad iyo aad ugu qancay ayaa wuxuu rasuulka ilaahay waan baxayaaho qoomkaygii ayaan aadayaa dacwada ugu yeerayaa marka ilaahay ii bari inuu aayad ii yeelo rasuulka sallallahu alayhi wasallam
إلهي وأبريي إلهي إنه آيات وحويان تصيصة إنه دينتي وحويان حقاهد إلهي دتك ويري نكني رسولك صلى الله عليه وسلم إلهي وأبريي معناها حجة إن إلهي وياله إلهي وجهيسي وحو كيال إفتين نور وجهيسي أي إلهي وحو أقلي إفتين مركز رسولك خصوصا نوضي رسولك إلهي وحن كبغي إني دهان تاني وحويان ومثله وجهيسي أيال بدلي oo ilaahay baa ciqaabay markuu diintiini ka tagay sidaas inay isiraadaan ka baqaya markaas rasuulku sallallahu alayhi wasallam hadana ilaahay u bariyay nuurkiya marka waxa la yeelay fi sawtihi jeedalkiisa la yeelay saxaabiga Tufayl ibn Amr ad-Dawsi Abu Hurayra ay waxa weeyaan isku qabiil ahaayeen marka ninka saxaabiga wuxuu ku magac dheeraa oo macruuf ku ahay dun nuur كي نورك وصاحبك يا اللي أورنجري طفيل واتجي قوم كيسي واتجي إلهي ونا سبحانه وتعالى أيو ويري توحيدك أيو ويري تتكي قار قوم كيسي كمد أيا إسلامي مركا قوم كيسي أيو إسكال جوي إلهي ونا سبحانه وتعالى نبي كيسي أفري خيبر مركي لفرطي أيو يمد الصغى أو وضح وهو قامين أيه سديتا قوس صغى وضح أيو نبي أيو صلى الله عليه وسلم أبو هريرة أو كم يديهاي طيب مركا قالوا آد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقت كاين ودعوذي النبي صلى الله عليه وسلم آد بأوهر إمادين تاسوان كقادرين قصة عن صور شاقني النبي صلى الله عليه وسلم إنه كو أتكاين ودعوذي بأوذي وايين وحكروا لك قادرين قصة عن صور شاقني تدك صور إسلاماهي وحويان مركي فهمان دعوة توحيدك أي فهمان إن أيوب بحجرين ولقى قاضنا يا وصومرنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه 10 مبشرين بالجنة تدك وقبضا أبو بكر الصواب وهاي مركو توحيدك وحويان أو قري مركي وحويان دعوة أيوب دقاقي تدك الصواب والنقضي وكان سياسو كله طفيل ابن عمرو الدوسي أصور مركو إيمان كيد دمي وحويان توحيدك أو ليم أصورنا واكاسا مسؤولية ayaa markiiba waxa weeyaan oo dareemay طيب sidaas anagana la karaba waxa laalay wixii aan naqaano inaan gudbino طيب inaan gudbino ballighu anni walaw aaya sidaas nabiga sallallahu alayhi wasallam waana ka xadiidka nabiga ku oranay fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humri na'am ilaahi baan ku dhaartay ilaahi wina subhanahu wa ta'ala saafkaada hal qof inuu ku soo hanuuniyo ayaa waxay kaaga khayr badan tahay waxa weeyaan geel casas انت كدب نبي صلى الله عليه وسلم ولا دلمي الإسراء والمعراج يا يمد نبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح من قول الصحابة والعلماء قولك الصحيحة وكصحيحة لماذا قول الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يوري هي علماء دبا نبي صلى الله عليه وسلم جسد كيس إن الوحويان لدلمي علماء دي waxay isku haystaan nabiga waxa la dheelmo ruuxdiisa masawaa ruuxdiisa jasadkiisa sida saxda waxa weeyaan nabiga jasadkiisa iyo ruuxdiisaba in la dheelmiyo weey ilaahina waa ka oranaya subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu ilaahi baa nastahan allaha dheelmiyay adoonkiisi marka adoonkiisi baa leeyahay adoonku marka ruuxda kaliya adoon ma jasadkii ruuxda la isku daray ayaa ilaahay adoonkiisi adoonkiisi baa ilaahay dheelmiyay marka isruhu wuxuu ka bilowday baytul haram ayuu ka bilowday asra bi abd al-layl min al-masjid al-haram masjid al-haram baa laga bilowday isruhu kay nabigana sallallahu alayhi wasallam intii aan la dheelmin ka gadaal waxa lagu sameeyay operation qalliin ayaa lagu sameeyay xabadkiisa waa la jeexay markaas waxa lagu dhaqay zamzam laba mar baa nabiga sallallahu alayhi wasallam qalbigiisa la jeexay mar waa nabi soo marnay oo soo caruurtii yaraa la joogay in ay u yimid in loo yimid kadibna la jeexay malaa'igtaasuna ay ka jartay waxa weeyaan intii nasiibka oo shaydaanku ku lahaa ayaa laga jaray qalbigiisa tanna waxa weeyaan waa la dhaqay waa la nadiifiyay zamzam baa lagu dhaqay waa la diyaariyay nabiga sallallahu alayhi wasallam
حكمتنا ولا جبوحي نبي صلى الله عليه وسلم وحا لصعدي ونبي الله صاحب جبريل أي لصعدي براق دابد ليراد ومقعيده أي وتين marka nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa laga dheelmiyay masjid al-haram ayaa laga dheelmiyay halkaas isruu ka bilowday xagoo ku eka bayt al-maqdis ayuu ku eka layla min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu halkaas nabiga ku degay sallallahu alayhi wasallam sayid jibril nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa loo soo kulmiyay anbiyada ilaahay baa loo soo kulmiyay halkaasuu marka nabiga sallallahu alayhi wasallam ku tujiyay kadib meeshaas waxa ka bilowday wax la yiraahdo mi'raaj isruhu wuxuu ka bilaabanayay waxa weeyaan masjidul haram wuxuu ku ekaa baytul maqdis halkaas kadib waxa bilaabanayay marka mi'raaj ayaa bilaabanay nabiga sallallahu alayhi wasallam iyo jibriil halkii bay ka dhaqaaqeen daabada ay saarnaayeen buraaqda waxay soconaysay waxa weeyaan inta arageeda uu gaaro ayay talaabsanaysay marka halkaas waxa ka bilowday mi'raajkii samaa dunya ayay gaareen tii ku xigtay tii labaad tii saddexaad ilaa tii afaraad tii shanaad tii lixaad tii toddobaad ilaa ay ka gaaraan inta wana nabigu wuxuu ku sii marayay sallallahu alayhi wasallam anbiyadii ayuu ku sii marayay sama kasta nabigu ku arkay ilaa inda sidratil muntaha isla gaareen jibriil halkaas marka nabigu sallallahu alayhi wasallam jibriil buu arkay markaas habeenkaas wuxuuna ku arkay suuradii ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala uu ku abuuray 600 oo garab isagoo leh ayuu arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam waa gudbay nabiga sallallahu alayhi wasallam ka jibriil baa ku haray ilaahay uu la kulmay subhanahu wa ta'ala nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahay wuxuu ku soo farad yeelay salaadaha shanta ayuu ilaahay ku soo farad yeelay konton salaadood baa ilaahay u soo dhiibay konton salaadood ayaa ilaahay u soo dhiibay subhanahu wa ta'ala marka nabiyullaahi muuse ayuu soo maray nabiyullaahi muuse markaas uu dadkii ana tajrubeeyay waxa weeyaan ummadaada waxa weeyaan ma awoodi karto konton rabbiga ku noqo iga fududeyd soo uu noqonayo hadba shan looga dhimay shan baa soo hartay sida ugu noqonayay rabbi subhanahu wa ta'ala muuse oo lahaay ma awoodo baa shan baa soo hartay shantaas marka kontonkii salaad ay ku ajirtaa qofka ilaaliya طيب culimadu marka waxay isku khilaafeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam habeenkaas laylatul isra wal mi'raj ma arkay rabbigiis bi'aynihi ma ku arkay masama uusan arag laba qowl ayay culimadu isugu khilaafeen rabbigi waa arkay iyo ma arkay ibn abbas waxa ka asaxday inuu yiri ra'a rabbahu rasuulku rabbigiis waa arkay waxa kale oo ka sugnaatay inuu yiri ra'aahu bi fuadihi qalbigiisa ku arkay saxaabadii nabiga sallallahu alayhi wasallam lagama hayo saxaabi yiri bi aynihi ayuu ku arkay bi aynayhi labadiisa indhoodu ku arkay lama hayo sariix saas ku ah waxa laga fahmi karaa rabbigii uu arkay riwaayada ibn abbas ra'a rabbahu rabbigiisa arkay riwaayada kala cadaysayo ra'aahu bi fuadihi qalbigiisa ku arkay حيل رواية هراء ومطلق تنوى مقيدة ويحمل المطلق على المقيد سيدنا وحوي مطلقة ولا حنباراه مقيد كالو حنباراه ورك عبد الله بن عباس وحو نقول يا إلهي ربي وأركيه قلبي سوق أرك صحيحين كوحا كسو عن عائشة رضي الله عنها هيضو إني إنكري جرتي قفك الشاكتو يرادا النبي صلى الله عليه وسلم هبين كاس ربي سوى أوارك ومر مسروق ابن الأجدع أويدي أدي أبي وإنكرتي إمام مسلم وحو صوصاري صحيحي سأكو صوصاري حديث أورينا أبو ذر وحو ليها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك اللهم بالسؤال هل رأيت ربك رسولك إلهي يو ربك ما أركتي مركز رسولك وحو صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه ربي ونور حجابه نور حجابك سوى نور أنا أراه أي كيف أراه صان وأركا رواية كلا رأيت نورا نور أيان أركي أيها رسولك صلى الله عليه وسلم كحديث أصبح لك قال النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه إنه سنكو أرك لبدي سإندود إنه سألك أرك سبحانه وتعالى سيدا صحيحة
haddaba nabiga sallallahu alayhi wasallam hadiyadaas oo xagga rabbi kala yeeyay salaadii markuu soo soo qaaday waagi markuu bariyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku waabariistay fi qowmihi qowmkiisa dhexdiisa ayuu ku waabariistay qowmkiisa dhexdooda ayuu ku waabariistay wuxuu markaa u sheegay qowmkiisa wixii uu arkay oo ilaahay wina subhanahu wa ta'ala aayaadkiisa waaweynaa habeenkaas ayuu u sheegay oo uga waramay waxa sii darnaatay marka beenintan rasuulka ay beeniyeen sallallahu alayhi wasallam sii darnaatay dhifkii rasuulka oo ay dhibayeen waa sii darnaatay ku dhiirashadii nabiga sallallahu alayhi wasallam ku dhiiranayeen waa sii darnaatay markaas rasuulku wuxuu bilaabay sallallahu alayhi wasallam inuu naftiisa u bandhigo qabaa'isha أيام الموسم maalmaha xajka carabtu waxa mushrikiintu waa xaji jirtay wuxuu rasuulku bilaabay sallallahu alayhi wasallam naftiisa inuu u bandhigo qabaa'isha inuu u bandhigo oo yiraahdo man rajulun yahmiluni ila qawmihi fayamna'uni hatta uballigha risalata rabbi fa inna quraishan qad mana'uni an uballigha risalata rabbi rasuulku wuxuu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam waa kuwa nin xambaaraya ma jira oo waxa weeyaan ila qawmihi xambaaraya qomkiisa ila aaday oo idifaacaya hatta uballigha risalata rabbi ila an ka guto risalada rabbigay ka guto waxa dhaca quraish qad mana'uni an uballigha risalata rabbi hayra quraish waa diiday inaan guto risaladii rabbigay oo dadka gaarsiiyo markuu sidaa yiraahdo oo mawsimkii xajka la taagan yahay sidaa markuu rasuulku yiraahdo sallallahu alayhi wasallam adeerkii Abu Lahab la'anahu Allah ayaa waxa weeyaan gadaashu ka socda markaas wuxuu dhahayay la tasma'u minhu fa innahu kadhaabun waxabaha ka maqalina waxabaha ka dhageysanina wiilkan waa wiil beenaalow ah sidaas uu dhahay waxay ahaayeen marka carabtu ahyaa'ul arab waxay ahaayeen kuwa iska ilaaliya marka nabiga sallallahu alayhi wasallam aad bay isaga ilaali jireen sababka ay isaga ilaali jireen waxa weeyaan warkaas oo ay sheegayaan quraysh warka ay sheegayaan ay dhageysteen waxay ka maqlaayaan quraysh oo nabiga ay ka sheegayaan ay aad iyo aad u dhageysan jireen markaas rasuulka sallallahu alayhi wasallam iska ilaali jireen inuu kadaab ay dhihi jireen inuu saaxir inuu kaahin inuu shaacir tayib warkaas oo waxa weey ayagu soo dhoodhoobeen oo beenta ah ayay waxa weeyaan ahyaa'ul arab u sheegi jireen waxa u dhakraari jiray marka warkaas qofkii aan tamyiis lahayn oo kala saari karin waxa xaq iyo baadil hadalka saxda iyo hadalka beenta qofkan kala sooci karin marka u dhakraari jiray laakiin dadka aqliga badan markay dhageystaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam kalaamkiisa oo ay fahmaan waxay qirayeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu sheegay inuu xaq yahay ayaguna ay ku been abuuranayaan sida daraadeed bay islaami jireen rasuulka sallallahu alayhi wasallam sidii ayuu u waday oo naftiisa wuxuu u bandhigi jiray waxa weeyaan qabaa'isha marka qabiil kasta marka uu bandhigo oo arinkaas u bandhigo waxay dhihi jireen ilaahay duu boqor ka dhigo hada maxaad noo ballan qaadaysaa maxaad inoo ballan qaadaysaa rasuulku markaas wuxuu dhihi jiray sallallahu alayhi wasallam jannad leedi walakumul janna hada ayagu janna ma yaqaanin markaas waa diidi jireen wuzaraad noqonaysaan iyo waxa intaas adduunyo rabaan ayagu nabiguna janna u ballan qaadi jiray sallallahu alayhi wasallam ilaahay wina subhanahu wa ta'ala fadiladaas oo ah nabiga in la xambaaro la difaaco ilaa uu risaalada rabbigii ka guto fadiladaas ilaahay wuxuu dib ugu dhigay waxa weeyaan aws iyo khazraj ansaarta ayuu dib ugu dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu kula kulmay al-aqaba jamratul aqaba ayuu wuxuu kula kulmay iyadoo mawsim xaj ay tahay 6 nin oo waxa weeyaan khazrajiin ah ayuu nabigu kula kulmay sallallahu alayhi wasallam 6 nin waxay ahaayeen abu umama ninka la yiraahdo as'ad ibn zurara auf ibn al-harith rafi' ibn malik ibn al-ajlan qutba ibn amir ibn hadida uqba ibn amir iyo jabir ibn abdullah ibn ri'ab 6daas bi ahaayeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam uu yeeray ila ibadati allah tawxiidka ayuu u yeeray ilaahay kaliya inay caabudaan ayuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam 6doodii u yeeray islaamnimada rasuulku uu yeeray marka way islaameen waa degdegeen khayrka ay u degdegeen hore ayay ka islaameen
kadib waa noqdeen 6 nin Madiina ay u noqdeen ayaguna sidaas oo kale waxa weeyaan dacwadii ay ugu yeereen dadka islaamkii marka Madiina ku dhex faafay guri kasta ayuu galay sanadka ku xigay waxa yimid oo xajkii yimid oo soo xajiyay 12 oo 6 ahaayeen waxa weeyaan 6 kala ku soo darantay طيب waxa ku soo darmay marka soo raacay nin la yiraahdo Muaad ibn al-Harith ibn Rifaa'a nin la yiraahdo oo Auf ibn al-Harith ibn Rifaa'a walaalkii ahaa waxa kale oo soo raacay Zakwan ibn Abd Qais ibn Khalad nin la yiraahdo ninkaas waliba asagu waxa weeyaan marka uu soo raacay Maka yimid Maka ayuu ku nagaado iska joogay hatta haajara ila al-Madina ila magaalada Madiina loo hijrooday oo asaguna raacay nabiga sallallahu alayhi wasallam dadkii la hijrooday kamid ah marka ninkaas marka loo tarjumaynayo la yiraahdo Zakwan marka loo tarjumaynayo Zakwan ibn Abd Qais ibn Khalad waxa la yiraahdaa inuu muhaajiriyun ansariyun wa nin muhaajiriya ansarina labada wasifo walaha ninka kale waxa la yiraahdaa ibn Samit ibn Qais iyo Abu Abdurrahman ibn Yazid ibn Tha'laba marka intaas waxa weeyaan 10 way 10 kaas marka khazrajiin bay ahaayeen reer khazraj bay ahaayeen labana waxay ahaayeen reer Aws Abu al-Haytham Malik ibn Tayyihan iyo Uwayn ibn Sa'ida labadaasna waxay ahaayeen reer Aws bay ahaayeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam 12 koodii rasuulka ay la bay'ataan bay'ay la galeen ka bay'at an-nisaa haweenkii nabiga sallallahu alayhi wasallam sida haweenka bay'ada ula galo kale oo ah inaysan shirki la iimaan ilaahay aysan waxba la wadaajin inaysan sinaysan inaysan wax xadin inaysan been abuurad la iimaanin طيب wax macruufa inaysan waxa weeyaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam aysan ku caasin marka rasuulka sallallahu alayhi wasallam bay'adaas ay la galeen walina lama amrin dagaal lama amrin way gadoomeen magaaladii Madiina ay u gadoomeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku daray markay gadoomayeen oo magaalada Madiina u noqonayeen Abdullah ibn Maktum iyo Mus'ab ibn Umayr labadaas uu ku daray nabiga sallallahu alayhi wasallam si ay wax dadka soo islaama quraanka ay u baraan dadkana waxa weeyaan dacwada ay ugu yeeraan islaamnimada ay ugu yeeraan dadka labadii way tageen Abdullah ibn Maktum oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam muadinkiisii ninka dariirka ahaa iyo Mus'ab ibn Umayr waxay ku dageen marka nin la yiraahdo Abu Umama As'ad ibn Zurarah ayay ku dageen gurigiisa Mus'ab ayaa marka imaam u ahaa oo tujin jiray maalmaha kamidaba wuxuu sameeyay waxa weeyaan marka 40 gaareen wuxuu oogay jumcihii ugu horeeyay Mus'ab ibn Umayr ayaa oogay magaalada Madiina 40 qof markay noqdeen 40 qof ayagoo ah ayuu waxa weeyaan jumcihii oogay waa halka maaragtay ay ka qaataan Shaafiiciyada iyo ay ka qaataan Xanaabilada labadooda waxay 40 ka yar inaysan waxa jumcuhu usan asaxay 39 haday ahaan lahaayeen waxa weey inuu tujin lahay iyo in kale yaa lama oga marka Xanaabilada iyo Shaafiiciyadu sidaas ay ku dhageen 40 baa ugu yarbiyaan 40 wixii ka yar jumca ka asaxmayso طيب maalikada ay 12 bay ku dhageen halka Xanafiyadu waxa weeyaan 3 ay ku dhaganta waxay taagayeen aqalul jamci 3 madhabkoodana raajix Xanafiyada طيب saladaas ma aanan ku jirin oo taariikh iyo siira ayaan ku dhex jirnay meesheeda lagu baxtiyaa waxa islaamay marka labadii nin oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ku diray Abdullah ibn Maktum iyo Mus'ab ibn Umayr labadooda gacmood waxa ku soo islaamay bashar aad iyo aad u fara badan waxa kamid ah Usayd ibn Hudayr Sa'ad ibn Mu'aad ragaas ayaa kamid ah ragga gacmooda ku soo islaamay waxa islaamay islaamida ay islaameen labadaan Usayd ibn Hudayr iyo Sa'ad ibn Mu'aad maalintaas jamii'u bani Abd al-Ashhal reer bani Abd al-Ashhal dhammaantood gabal kama harin dhammaantood waa islaameen raggoodii iyo dumarkoodii
إلا هل معه من أصيرم ليرادو معه أصيرم بحال ديه جري عمرو بن ثابت أيها الأورنجري إسلام كيسو أسوى وديبو دعي وضاهي إلى مالنتي أحد لغا غيره مالنتي أحد أيو سو إسلامي مالنتاسو إسلامي ودغالمي وانا لدلي أسوى هل مرنا إلهي أسجود سبحانه وتعالى هل مرنا سو إلهي أسجود أيها لدلي صلاة متكنا لغا ودا طبعا صلاة واجب يكون أهل معها قفك مجاهد كأه إن صلاة لقرب صلاة دي واحد ويا يدو الجهاد كله مجرى على إسكرها صلاة الخوف يسقاف كله كذا نصوص واحد معناه واحد ويو صو إسلامي مركو صو إسلامي أيام مركز واحد تاجنا جهاد كتاجنا صلاة ده وقت جدينا لما جاري صلاة وقت جدينا لجاري مركز وهلك كل شهيد رسولك صلى الله عليه وسلم أي الله شيء مركز رسول وحويري عمل قليلا وأجر كثيرا وحو عمل فلي وحير أي عمل فلي وحوين ولو أبا المري سياس النبي صلى الله عليه وسلم إسلام كي واو فربتي مقالة المدينة وخو فربتي وانا مغضي كدي مصعب بن عمير مكاء يوصل نغضي موسم كي مركا حج كي ضمبي waxaa soo xaadiro yimid khalqi aad iyo aad u fara badan ayaa yimid oo waxa weeyaan muslimiin iyo mushrikiin ba ay isugu jirto muslimiin iyo khalqi aad u fara badan ayaa soo xaadiray muslimiintii markaas oo Madiina ka tagtay oo waxa weeyaan xajka aad markaas waxa zaciim u ahaa hogaamiye u ahaa saxaabigii la oran jiray al-Baraa ibn Ma'ruf markii la soo gaaray laylatul aqaba ليلة جمرة العقبة ليلة العقبة وحال رواهبينك بشد الحجة أي طبال كتايو حيث صباح لذا لطورتا جمرة العقبة مركي لسوق جاري هبين كاس وقت سنة سدح مركا الله قيبي ثلث كيكو وادي أو تغي نبي صلى الله عليه وسلم وحا أسود السي وسيقر سودية أقول يمد تضواطن يسدح نين يلوى قبضات تضواطن يشن قفوضة أطيب النبي صلى الله عليه وسلم سيقر سودية أي مادين وبيعة العقبة الثانية رسولك صلى الله عليه وسلم ولبى يعتمي سيقر سودية أي ولبى يعتمي النبي صلى الله عليه وسلم مبايعاتنا وحويان رسولك صلى الله عليه وسلم إن وركي صلى يالو سمع طاعة رسولك للسيء في المنشط والمكره في اليسر والعسر حالة فضوض إيه حالة عسر انتبه النبي صلى الله عليه وسلم وركي صلى يالو لأطيعه أيغنا وحويان جنة الله بلنقاضه سيداس وي معناها بيعه رسولك السمع طاعة إلى السيء لقدم بي وركي صلى يالو في المنشط والمكره طيب رسولك صلى الله عليه وسلم أي لبى يعتمد سقر سعودي أيه قوم كودي إسك إلالينيه كذلك سيدا سوكل من كفار مكة ما إسك إلالينيه أو إسك قرينيه وحي رسولك كلبى يعتمد نبي صلى الله عليه وسلم إن الدفاعان وحا كالدفاعان هوين كودا إيه المهودا إيه أهل كودا إن النبي صلى الله عليه وسلم كالدفاعان سيدا سي نبي كلبى يعتمد قفك يقول ريو النبي صلى الله عليه وسلم في عضل لقلي النبي صلى الله عليه وسلم هبين كاسوحوا أهل البراء بن معروف مثل ما دحضوا أهايو عقد جاي هشيس كأد وأتكي وأنا أدق دق سيا يقول ري مركب بيعدا صوحة كلا صوحة عذري عباس والنبي صلى الله عليه وسلم أديركي أهاي نوايم أصوى مؤكدا للبيع بيعدا آد وأتكيني وليبقى أصوى مركز وحويا على دين قومه كسوا على دين قوم كيس الدين تودي أيو مركز كسونا وحو بيعدا وأتكيني يوحوليه والويل كان وحويا أديركي بانا حدو هداد مال إلا أوتي دونتان حدا كتغا اسكفيري أرنت مركز مؤكد للبيع أيوه بيعدا وأتكيني رسولك صلى الله عليه وسلم تضواتي يسدح دي وحو كدورتي habeenkaas 12
ayuu ka doortay naqiib 12 nabadoon ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam kala dhex baxay 12kii waxay ahaayeen As'ad ibn Zurara Sa'd ibn Rabi' ibn Amr Abdullah ibn Rawaha ibn Tha'laba iyo Rafi' ibn Malik ibn Ajlan Al-Bara' ibn Ma'rur Abdullah ibn Amr ibn Haram oo ahaa Jabir ibn Abdullah aabihis habeenkaas ayuu islaamay Sa'd ibn Ubadah ibn Dulaym iyo Al-Mundhir ibn Amr ibn Khunays iyo Ubadah ibn Samit kuwaasi waa 9 dadka aan soo tirinay reer Khasraj bay ahaayeen 9 kuwa ayaa u badnaa awsna 3 baa rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ka doortay Usayd ibn al-Hudayr Sa'd ibn Khaythama ibn al-Harith iyo Rifa'a ibn Abd al-Mundhir labada haween waxay ahaayeen oo waxaan soo sheegay 73 nin iyo 2 haween labada haween waxay ahaayeen Umara gabadha la yiraahdo Umara magaceedu wuxuu ahaa Nusayba binti Ka'ab ibn Amr ayaa la oran jiray waa haweeneydii waxa weeyaan wiilkeedii oo ahaa Habib ibn Zayd ibn Aasim ayay dhashay waxa dilay Musaylama ninkii la oran jiray Musaylama ayaa dilay oo wuxuu yiri ma qiraysa nabi maxamed rasuulka ilaahi ayaa markaas yiraahdo ma qiraysa anigu inaan rasuulka ilaahi ahay markaas wuxuu maya ma qirayo markaas xubin ayuu u jarjaray saasoo dadkii hore loo cadaabi jiray xubin ayuu u gooyay Habib ibn Zayd ibn Aasim waxa dhashay Amara Nusaybah binti Ka'b ibn Amr haweeneydaas ayay ahayd marka talabaadna waxay Asma binti Amr ibn Adi ayaa la oran jiray bay'adii marka sidaas ayay ku dhamaatay oo nabiga sallallahu alayhi wasallam uu kula galay kadib nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa bilaabay doonta inuu idmay in la hijroodo markii dacwadii waxa weeyaan laga wadi waayay nabiga sallallahu alayhi wasallam riya ayaa lagu tusay marka hijratu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam ayaa darsigeena damba ka bilaaban doona halkaas maanta kelimadeeni ayaa ku eg والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد